waxaa magaalada Muqdisho ka qabsoomay shir looga hadlayay sidii amniga guud ee dalka loogu wareejin lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Shirkaani oo ay si wada jir ah goobjoog ugu wada ahaayeen wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur isagoo kulankaasi ku wehelinayay wasiir dowlaha wasaaradda amniga iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno kale oo dowladda Soomaaliya shirkaasi ku matalayay, iyadoo dhinaca kale shirkaasi ay ka dhex muuqdeen saraakiil ka socota Midowga Afrika iyo Midowga Yurub iyo saraakiil ku matalaysay dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka kuwaasi oo daneynayay shirkaani iyo waxyaabaha looga hadlayo. Shirkaani ayaa daba socday shir kale oo ka dhacay magaalada Addis Ababa oo looga arinsaday qorshaha qaranka ee kala guurka iyo fulinta heshiiska shirkaasi lagu go'aamiyay. Dhanka kale, shirkaani ayaa waxaa warbixino looga dhageysanayay guddiga farsamo ee dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika. Warbixintaasi oo ku saabsaneyd u diyaargarowga labada sano ee soo socota iyo fulinta wax lagu heshiiyey iyo xaqiijinta sidii dowladda Soomaaliya ay u gaari lahayd hanashada amniga guud ee dalka. Ugu dambeyntii, wasiirka difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa ugu mahadceliyay garab istaagga ay dowladda Soomaaliya garab istaageen ururada Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo beesha caalamka, isagoona ballan qaaday inuu adkeyn doono oofinta dardargelinta howlaha looga fadhiyo dowladda Soomaaliya ee hanashada amniga guud ee dalka. Cabdiraxmaan Atore, Nairobi.